xarunta laga binaynayo qasriga cusub ee madaxtooyada Somaliland ay yeelan doonto ayaa lagu qabtay munaasabad kooban oo ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ay ku wareejinayaan bilowga hore ee dhismaha madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland waxaana madasha ku sugnaa hoggaanka taliska ciidanka militariga hoggaanka sare ciidanka ilaalada madaxtooyada iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada sareeyagaas Nuux Ismaaciil Taani taliyaha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa ka waramay maraaxilka ay soo martay bilowga hore ee dhismaha madaxtooyada taas oo ay hirgeliyeen ciidanka qaranka waxaan agaasima noo sharafa inaan dhismahan anagu xoog saaray dib kasta ha ahaatee kuna faano dhismaha qaranka oo mustaqbalka inaan qayb ka qaadanay anaan ku faano waxaan ka rajeynayaa inaad igala wareegto dhismahan agaasimaha guud ee madaxtooyada Somaliland Maxamed Cali Bile ayaa ciidamada militariga Somaliland uga mahad celiyay sida xilkasnimada leh ee ay u hirgeliyeen dhismaha hore ee madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland taasoo wax weyn ka qaadanaysa dhismaha shaqo ee qaranka Jamhuuriyadda Somaliland maalintii la qorsheynayay hadal badan baa iska jiray talo sida loo oranayaa xagee ka dhacaysa maxaa lagu falayaa dadka maxaa looga raray maanta se hanti qaranku leeyahay oo dhula waa hantida ugu weyn ee meel taal marka laga reebo xiriyaha ciidanka waa hantida inta leeg oo wax kasta ka dhismayaan oo madaxtooyada ka dhismayso xafiisyada dawladeed ka dhismayaan qaranka u hadhay waxaasna ma suura galeen haddaan horta ciidanka qaranku hawsha gacanta ku hayn waayo iyaga mar difaacayay mar dhisayay mar ilaalinayay mar mujtamaca meesha degan abaabulayay mar xiriir wanaagsan la yeelanayay bulshada marka runtii cid kasta oo kale oo mashruuca gacanta ku hayn lahayd marnaba kuma guuleysatay muddada yar haddaan ciidanku hayn waa 4 kiiloomitir haddaad lug ku dhufato 4 kiiloomitir oo dhinac kasta waa kiiloomitir iyo siyaada dhinac kasta marka la isku daro qofka lugeeya ee gidaarkeeda ku soo wareega waa 4 kiiloomitir